goor ay ahayd xilli dambe oo ka mid ah bishii Abriil sanadkii 1945 Adolf Hitler waxa ka muuqatay niyad jab xooggan iyo burbur maskaxeed oo soo food saaray runta dacarta ka qadhaaray uu goosihiisa ku hayn kari waayay waxay ahayd inay tahay gabagabadii mid ka mid ah gacan-yarayaashiisa oo lagu magacaabi jiray Trudiyong ayuu u yeeray kana codsaday inay qorto dardaarankiisii u dambeeyay kaasoo kaga hadlay dhiigga badan ee qubtay iyo halaaga aadanaha loo horseeday inaanu dumadda saarayn dambigiisa haddaba muxuu ahaa nuxurka oo xambaarsanaa dardaarankiisu intaa kadibna maxaa haleelay hogaamiyihii naaziga Führerkii Almaaniya hilbihii meydkiisana sidee ayay u galeen naaziyiintu magacaygu waa Maxamed Suweydli halkanna waa Madowles TV haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir asxaabta aan la wadaag muuqaalkan mahadsanid laga soo bilaabo sanadkii 1943 Hitler uu dareensanaa inuu dagaalka ku guul dareysan doono balse waxa uu ku faraadeeyay qorshayaashiisii aan tafatirnayn ee uu dagaalka ku habayay sanadkii 1945 markii la gaaray xoogagii isbahaysiga ee ciidankii casaaya ee Sovietiga waxay soo gaadheen agagaarka magaalada Berlin Sovietiga uu hogaaminayay Joseph Stalin waxay ku qancayeen oo kaliya in naaziyiinta Jarmalka dhulka lala simo iyagoo bishii koowaad ee sanadkii 1945 haragooda ajasha ka saaray 450,000 oo ciidankii Jarmalka saddexdii bilood ee ku xigtayna waxay laayeen 280,000 oo naaziyiin waana tiro ka badan Jarmalka intii ciidan kaga laatay sanadihii 1942 ilaa 1943 markii la gaaray bishii labaad ee sanadkii 1945 waxa naaziyiintu ku gadaamantay xaalad cakiran oo u horseeday walbahaar iyo walaacan joogsi lahayn waxaana muuqaaladii laga soo duubay magaalada Berlin xilligaasi muujinayeen dad ka fardhanaya aqaladoodii iyo bakaaradii waaweynaa oo cuntada laga guranayo ciidanka naaziyiinta waxa lagu tiriyaa sooyaalka ciidamadii ugu mayalka adkaa ee guuldarrada aan aqbali jirin sababtaas ayaana loo laayay badidooda balse bishii afraad ee sanadkii 1945 waxay ahayd baabi iyo balanbalkii naaziyiinta 16 bishii Abriil isla sanadka waxa gudaha loo soo galay magaaladii Berlin dadku waxay ka maqleen rasaasta iyo madaafiicda masaafaha u dhow inta kadib waxa ciidankii Jarmalku ka soo saareen xabsiyada dadkii loo tuhunsanaa inay nidaamka carqalad ku yihiin dabadeedna way laayeen dhamaantood Adolf Hitler hogaamiyihii naaziyiintu waxa uu qarmeeyay caruur daadoodu aad u kooban tahay oo markaad aragto iyagoo ku labisan dharka ciidanka koofiyaduhu wajiyadooda kala bar qarinayaan hagardaamadan uu Hitler u horseeday jiilkan aan waxba geysan waxa uu lid ku ahaa dabeecadda aadanaha sida uu ku daabacay Max Hasten dhiganihiisa Inferno Jarmalku waxa uu mar waliba maankiisa ku kaydinayay haddii laga gacan sareeyo inaanay naxariis kala kulmaynin ciidanka cas ee waa inay u geeriyoodaan mabda ay aaminsan yihiin ama ay wax u dilaan Hitler ayaa hoygii ku dhuumaalaysanayay kula kulmay la taliyayaashii Reich kadib markii uu maqlay geerida madaxweynihii Mareykanka Franklin Delano Roosevelt 12 bishii Abriil sanadkii 1945 isagoo rajo fiican bidayay inuu qalinka ku duugo heshiiskii nabadgelyada madaxweynaha cusub Harry Truman taasoo aan hirgelin ugu dambeyntii waxaana ay xilligii Hitler ka hor calay golayaashii xukuumaddiisa isagoo ku eedeeyay ciidankiisa inaanay u dagaalamin sidii uu rabay 22 Abriil isla sanadkaas waxa uu Hitler qirtay in dadaaladiisii oo dhan noqdeen biyo culdaanshay 2 cisho kadib maalintii dhalashadiisa waxa uu goob fagaaraha ka dhiirigelinayay naaziyiinta isagoo og inay tahay maalmihii u dambeysay noloshiisa dhanka kale waxa uu ku dhawaaqay inuu guursan doono Eva Braun ka hor geeridiisa balse Eva ayaa ku mashquulsanayd xasaynta hantideeda qaaliga ah ee dahabka u badnayd farintii ugu dambeysay ay u qortay saaxiibadeed Herta Ostermeyer waxay ku cadeysay in aan sinaba loo heli karin hantidaas markii ruuxdu luqunta soo gaadhay naaziyiintana naftu iska sii gurayso madax tiro badan ayaa qoondeysay qorshayaal ay uga fardhanayaan magaalada caasimadda waa Jarmalka waxaana madaxda ka mid ah Hermann Göring oo Hitler u sheegay inuu safar shaqo ku aadi doono koonfurta Jarmalka hase yeeshee intuu islaha ururso wixii alaab macduuna kaaga kala daadsan Berlin ayuu Hitler ogaaday sidoo kale waxa ku xigay xogayihii khaaska ahaa ee Hitler Martin Bormann bulshada rayidka ee Berlin oo diif badan ka muuqato garanna la sida xaalku noqon waxa Joseph Goebbels uu soo saaray warqad nuxurkeedu yahay bulshada Jarmalka inuu ugu baaqayo inay difaacaan wadankooda qoysaska ay ka soo jeedaan iyo sharaftooda intaba kuna difaacaan awoodoodu intay gaarsiisan tahay 27 bishii Abriil sanadkii 1945 waxa Hitler ka dhageystay idaacadda Britain in sarkaal ka tirsan naaziyiinta Heinrich Himmler uu wada hadallo la furi doono xoogagii xulafada taasoo ka cadhaysiisay Hitler kuna kaliftay inuu ciidamo u diro si loo soo qabto balse uu ka baxsaday ugu dambeyntiina uu istilay gooray tahay habeen 28 bishii Abriil waxa dhacay arooskii Hitler iyo Eva Braun munaasabadana waxa ka soo qayb galay saraakiishii ugu sarsaraysay naaziyiinta iyadoo aanay xaaladu deganayn cadawguna uu ku soo qulqulaya agagaarka magaalada Berlin
ayaa Eva Braun masaxday magacii qoyskeeda kuna qortay Eva Hitler. sida caadiga ahayd waxa saacadu markay tahay 11 subaxnimo Hitler u yimaada timajarihiisa Vollenhaupt iyo gacanyarihiisa Heisenling oo xilligaas uu akhriyay wargeysyada subaxii soo baxa. maalintii ugu dambeysay waxa Hitler kala dardaarmay Heisenling inaan u ogolaan Ruushka inay meydkiisa gacanta ku dhigaan. waagaas waxa Hitler qaadan jiray dawooyin tiro badan iyadoo lagu qiyaasay 28 dawo kala duwan. maalin kadib Hitler waxa soo gaadhay warar sheegaya in la daldalay hogaamiyii faashistiga ah ee Talyaaniga Benito Mussolini oo meydkooda lagu tuuray isaga gacaladiisa barxadda Loreto ee magaalada Milano, taasoo Hitler u xambaarsaneyd xaqiiqda ah in isagana lagu soo socdo. wararka dhabarjabka ku noqday hogaamiyii Naaziga waxay ahaayeen in xoogagii Mareykanku la wareegeen xerada Dachau kuna laayeen 520 kun oo Naaziyiina, balse waxa ka soo daba dhacay warar beeninaya tirada la laayay inay inta aad uga yar tahay. Hitler oo dhufayskiisa ku jira ayaa cadhay iyo cuqdad la hinraagayay, waxaana u yeedhay xogayihiisa Trudi Young oo dhiman doonta sanadii 2002. Trudi waxay qiratay inay jecleyd Reich iyo Führerkii Jarmalka Adolf Hitler. intii uu dhufayska ku jira Hitler waxa kaliya uu doonayay wuxuu ahaa in jirkiisa dambas laga dhigo. hal mis ayuu ugu yeedhay inay wax ku wada cunaan xogayihiisa iyo gabadhii cuntada u samayn jirtay Fraulein Constance. Hitler maalintaas waxa uu xal waraystay xogayihiisa Trudi isagoo weydiiyay inay si fiican u seexatay iyo in kale, iyaduna waxay si xamaasadii ku jirto ugu jawaabtay haa. gacanta intuu qabtay ayuu uga sheekeeyay dardaarankiisii u dambeeyay wax uu noqon doono in marka sida naftu iga baxdo aad baabiisaan hilbahayga, dambaska lafahaygana aad geysaan madxafka ku yaala tuulada Lennes. walxaha kale ee abaalmarinadaydii aan ku mutaystay halgankaygii siyaasadeedna inaad u hadiyadaysaan qoysaska iyo nafurayaashii xisbiga Naaziga. qayb ka mid ah dardaarankii Hitlerna waxa uu ahaa sida tan: iyadoo aan ii suurtagelin inaan qoys iyo aqal yagleelo muddadii aan ku jiray loolanka iyo dagaalka joogtada ah, maanta ay u muuqato gabagabadii waxa xaaskayga noqotay haweeneydan sida mutadawacnimada u soo gashay Berlin. kadib sanado tiro badan aan nolosha ku soo hayn saaxiibo marxalado kala duwan soo maray, si ay maanta ila qaybsato gabagabada masiirkayga iina la dhimato iyada rabitaankeeda. dagaalkii aan qaaday sanadkii 1939 ma uu ahayn mid aan jeclaystay fulintiisa, ee waxa sabab u ahaa hormuudka dowladahaas oo Yuhuud ah ama ku shaqaynaya afkaarta Yuhuudda. luqunta ima sugnaha gardaamadii ka dhacday Poland ee Ingiriiska ayaan u bandhignay inay xaliyaan dhibaatada Jarmal Boolandiiska, balse iyaga ayaa qori dable la wareegayay dhafoortaabashana nagu waday. annaguna waxaanu tusnay awoodeeda. Hitler waxa uu dardaarankiisii ku xusay laba ka mid ah saraakiishiisii, Heinrich Himmler iyo Hermann Göring, isagoo ku tilmaamay cadaqaatayaal dhabarka ka qaniinay halgankii Naaziyiinta. sidoo kale waxaa xusud mudan tiro badan oo ka mid ah hormuudkii xukuumaddiisa oo uu ku tilmaamay inay istaahilaan in xilal loo dhiibay isaga dabadii. gooray ahayd 29 bishii Abriil abaalo subaxii hore magaalada Berlin waxaa ka dhici doonta dhacdo ay markhaati ka ahaayeen Goebbels, Bormann, Albert Krebsy iyo Wilhelm Burgdorf. intii ilaalada Hitler ku howlanaayeen burburinta dukumentiyadii iyo xogihii xafiiskiisa, waxaa Eva Braun sheegtay inaanay ka cabsanin geerida oo ay halkan isku dili doonto. warbaahiyii propagandada Naaziyiinta Joseph Goebbels ayaa bulshada meel fagaara ah kala hadlay una sheegay Hitler inuu dhintay 3:00 gelin dambe, kuna beegan maalintaas bishii Abriil 30 sanadii 1945. kadib waxa meydkii Hitler iyo Braun lagu gubay beerta la taliyayaasha Reich Jarmalka. ciidankii Naaziyiintuna halkaas ay ka sii wadeen halgankoodii ilaa dagaalka lagaga adkaaday oo dhulka lala simay taariikhdooda. taasina waxa ahayd gabagabadii mid ka mid ah kala talislayaashii dunida ugu saameynta badnaa qarnigii 20aad, Adolf Hitler. dadka qaar ayaa aaminsan inuusan dhiman Hitler oo been laga sheegay geeridiisa, una kicitimay halkaas iyo dalka Argentina wadku ugu yimi ugu dambeyntii. haddaba daawada maxay kula tahay adiga? faalladaada xagga hoose nagu reeb, naguna soo biir haddii aad nagu cusub tahay.